hankaagu waa hibo sharaf kugu hagoogane ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiino horweyn ku irmaano aad ku hiranayse kusoo dhawow waayeel media haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato kanaalkeena subscribe inoo saar gambaleelka furo si aad u socoto casharada xana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم دمانتين waxaan filayay inaad caafimaad qabtaan dhammaantiinba casharkeena waxa uu ku saabsan yahay practice wada sheekaysi about family wada sheekaysi ku saabsan qoyska A iyo B waa wada sheekaysanaya hello ahleyn I'm very delighted aad baan ugu faraxsanahay and exciting waxaanan xiiseynayaa to appear inaan ka soo muuqdo in front of you hortaada so sidaa daraaddeed how are you feeling my dear brother sidee tahay walaalkayga qaaligow hello ahleyn I'm very delighted aad baan ugu faraxsanahay and exciting waanan xiiseynayaa to appear inaan ka soo muuqdo in front of you hortaada so sidaa daraaddeed how are you feeling my dear brother sidee baad tahay walaalkay qaaligow B I am top of the world aad baan u wanaagsanahay everything is all right shay walba waa saxdii waa sidii loogu talagalay what did you prepare for us maxaad inoo soo diyaarisay I am top of the world aad baan u wanaagsanahay everything is all right shay walba waa saxdii waa sidii loogu talagalay what did you prepare for us maxaad inoo soo diyaarisay inaga A I have a fantastic topic waxaan inoo hayaa mowduuc xiisa leh and crucial oo muhiim ah which is about mowduucaasoo ku saabsan family qoyska as we know sidaynu ognahay family qoysku consist of wuxuu ka kooban yahay father aabe mother hooyo and their children iyo carruurtooda there are waxaa jira two kinds of family laba nooc oo qoyska ah extended family qoys ballaadhan and nuclear family iyo qoys kooban ama yar I have a fantastic topic waxaan inoo hayaa mowduuc xiisa leh and crucial oo aad u muhiim ah which is about kaasoo ku saabsan family qoyska as we know sidaynu ognahayba family qoysku consist of waxa uu ka kooban yahay father aabe mother hooyo and their children iyo carruurtoodii there are two kinds of family waxaa jira laba nooc oo qoyska extended family qoys ballaadhan and nuclear family iyo qoys kooban ama yar if I clear haddii aan caddeeyo my point qodobkayga nuclear family qoyska koobani is almost small badanaa waa mid yar and consist of wuxuuna ka kooban yahay father aabe mother hooyo and their children iyo carruurtoodii that live together kuwaasoo u wada nool si wada jira if I clear haddii aan caddeeyo my point qodobkayga nuclear family qoyska kooban ama yari is almost small badanaa waa mid yar ama kooban and consist of wuxuuna ka kooban yahay father aabe mother hooyo and their children iyo carruurtoodii that live together kuwaasoo u wada nool si wada jira extended family qoyska ballaadhani is usually big badanaa waa mid weyn and consist of wuxuuna ka kooban yahay father aabe mother hooyo children carruur grandmother ayeeyo grandfather awoowo cousins ilmaadeer ilmaabti iyo habar wadaag saddexdaba aunties edooyin ama habaryarooyin uncles adeero ama abtiyaal and so on iyo intaa wixii lamida extended family
qoyska ballaadhani is usually big, badanaa waa mid weyn, and consist of wuxuuna ka kooban yahay father aabe, mother hooyo, children caruur, grandmother ayeeyo, grandfather awowo, cousins ilmaadeer ama ilmaabti ama habar wadaag, aunties edooyin ama habaryarooyin, uncles adeero ama abtiyaal, and so on iyo intaa wixii la mida. B. What are duties of parents? Maxay yihiin waajibaadka waalidku? What are duties? Maxay yihiin waajibaadka of parents waalidka? Our parents waalidkeenu are leaders waa hogaamiyaasha of our family qoyskeena, and each of them mid kastoo ka mida waa waalidkeene has an special duty wuxuu leeyahay waajib gaara ama gooniya. For example, tusaale, father aabe is a breadwinner waa qofka biiliya of the family qoyska. Our parents waalidkeenu are leaders of our family waa hogaamiyaasha qoyskeena, and each of them mid kastoo ka mida waa waalidkeene has an special duty wuxuu leeyahay waajib gaara. For example, tusaale, father aabe is a breadwinner waa qofka biiliya of the family qoyska. He normally wakes up caadiyan wuxuu kacaa waa aabe early in the morning xili hore ama hiirtooruu kaca subaxii. Goes to work shaqada ayuu tagaa ama uu aadaa in order to earn siduu u soo helo the daily life nolol maalmeedkii of the family ee qoyska. He normally wakes up caadiyan wuxuu kacaa waa aabe early in the morning xili horuu kaca subaxii. Goes to work shaqada ayuu aadaa in order to earn siduu u soo helo the daily life nolol maalmeedka of the family ee qoyska. Without father aabba la'aan the family qoysku can't exist ma noqonayo mid sii jiri karaa. As well sidoo kale the family qoysku needs wuxuu u baahan yahay tuition fee lacagta waxbarashada, rent of the house kirada guriga, water biyaha, electricity laydhka, and so on iyo intaa wixii la mida ayuu u baahan yahay qoysku. Without father aabba la'aan the family qoysku can't exist ma sii jiri karayo. As well sidoo kale the family needs qoysku wuxuu u baahan yahay tuition fee lacagta waxbarashada, rent of the house kirada guriga, water biyaha, electricity laydhka, and so on iyo intaa wixii la mida. If the father haddii uu aabbuhu doesn't pay uu bixin kari waayo all these expenses dhammaan qarashaadkan, the family's life nolosha qoysku can't continue ma sii socon karayso. If the father haddii uu aabbuhu doesn't pay uu bixin kari waayo all these expenses dhammaan qarashaadkan, the family's life nolosha qoysku can't continue ma sii socon karayso. What about mom? Ka waran hooyo. Mom hooyo is an important member waa xubin muhiim ah of the family qoyska. She takes a lion's share waxay ka qayb qaadataa qayb libaax leh to build the family si ay u dhisto qoyska. Mom hooyo is an important member waa xubin muhiima of the family qoyska. She takes a lion's share qayb libaax leh ayay ka qayb qaadataa to build si ay u dhisto the family qoyska. She arranges waxay habaysaa waa hooye all the house tasks dhammaan shaqada guriga. For example, tusaale, she cooks food waxay karisaa cunnada, cleans house gurigay nadiifisaa, washes clothes dharkay dhaqdaa ama ay meedhaa, and prepares children carruurta waxay u diyaarisaa for school dugsiga.
while father halka uu aabuhu is out work uu shaqo u baxo. She arranges waxay habaysaa hooyo all the house task dhammaan shaqada guriga. For example, tusaale, she cooks food cunnay karisaa, cleans house gurigay nadiifisaa, washes clothes dharkay meedhaa ama ay dhaqdaa, and prepares children for school carruurtana waxay u diyaarisaa dugsiga. While halka father is out work halka uu aabbe shaqada u baxo. She also teaches waxbay bartaa and trains way tababartaa hooyadu the children carruurta. She takes care waxay ilaalisaa their health caafimaadkooga, growth koritaankooga, and observing waxaanay ilaalisaa oo ay ka warhaysaa with their learning waxbarashadooda. She also teaches and trains sidoo kale waxay wax bartaa oo ay tababartaa the children carruurta. She takes care waxay ilaalisaa their health caafimaadkooga, growth koritaankooga, and observing waxaanay ilaalisaa oo ay ka warhaysaa with their learning waxbarashadooda. Thanks a lot aad baad ugu mahadsan tahay for your information warbixintaada. Thanks a lot waad ku mahadsan tahay for your information warbixintaada. You welcome brother adigaa mudan walaalkayow. You welcome brother adigaa mudan walaalkayow. aad baad ugu mahadsan tahay sidaad ula socotay casharkan. fadlan casharka ka daba tag oo ku celceli su'aala waad weydiin kartaa. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan. la soco casharada taxanaha aan soo gelin doono kanaalkeena. haddii fiidiyowga ka cajabiyey like noo saar, dhiirigelin bay noo tahay.